السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان بآد إياد بين سلامية ميل كستا جوكتان إيما دل كستا آد كسوغنتين به. بعد السلام مانتا sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan barano isla fatxadii aan hadda ka soo hadalnay iyo inaga oo xuruuftii oo dhan isku dardarnay. qaabka xuruufta la isugu dardarayo waxaan ku soo qaadanay 10keena afraad. 10keena afraad waxaan ku soo qaadanay 10 oo isla 10kaas 4 ka ah cutubka afraad waxaan ku soo qaadanay 4 ama 4 darsi axlaya 10 darsi isla markaana aanu kaga hadlayno qaabka ay يعني ereygu ama xuruuftu ay soo raacdo ama qaabka la isugu xidhiidho yani qaabka looga dhigo wax la akhriyi karo. tusaale ahaan tan oo kale qaabka ka dhigtay in sidaas oo kale la isugu xidhiidho awal waxay ahayd alifku qaabkaas oo kale aha ama a waxaan naqaano ayuu ahaa waxaynu xigay miim baynu xigay waxaynu xigay ra baynu xigtay marka miimkuna waa kor dhignaa raaduna waa kor dhigan tahay. qaabka la isaga dhigay sidan oo kale waxa weeyaan iyada oo alifka iyo miimku aan isku xidhmi karin oo alifku ka mid yahay xuruufta dhankan aan waxba kaga xidhmi karin laakiin xaggan uun wax kaga xidhmi karaa. marka miimka gooni buu ka istaagaya oo saas oo kale noqonaya inaan la isku xidhi karin oo kale. raada iyo miimku isku dhagayaan oo raadu waxay ka mid tahay xuruufta aan dhankan wax laga xidhi karin laakiin dhankan ogol in wax laga xidho. marka qaababka noocaas waxaan ku soo qaadanay 10keena afraad. haddii aad ku aragtid isla page-ka ama qaybta journal-kan waxaad tagaysaa 10ka afraad ka bacdina waxaad dooranaysaa 10kiisa koobaad ilaa iyo 10kiisa tobnaad ayaan si faahfaahsan kaga hadlaya. waliba 10ka tobnaadii isagoo oo dhan ayaan kaga faahfaahina ayaan kaga hadlaya. maanta uma jeedo sida xuruufta isu raacdo balse waxaan la jeedaa inaan ku baro waxa loo yaqaano fatxada. al-fatxatu fatxadii hadda aan ka soo waramayay ama kordhiga. erey kastaba qaabka loogu dhawaaqayo iyada oo kordhigaas la isticmaalayo ayaan doonayaa inaan markaasi aan halkan ku soo bandhigo insha Allah ta'ala. waxaan rajaynayaa fatxa horaan soo hadalay 10kiisa ka horeeyay ayaan kaga soo hadalnay. fatxada waxa loo yaqaanaa kordhig waxa Soomaaliga loo yaqaano. kordhiguna muxuu yahay waa xaraf kasta oo xuruufta Carabiga kamid ah wixii sida loo jiido ee korka ka saaran ayaa loo yaqaanaa kordhig. wax kasta oo saa loo jiido laba mid kala saar laba mid doonayna kala saarno. alifku markuu saa yahay kan alif wax male baa la yiraahdaa laakiin waxaa jira wax yar oo dusha sare ka saarma kaas ayaa kordhiga yeesha. kaasaa kordhig leh oo mar walba dusha wax laga saaraa laakiin alifka oo sidiisaas waxba ma yeesho. kordhig ma yeesho, hoos dhigna ma yeesho, godnina ma yeesho. ugu tagi maysid quraanka ugu tagi maysid luqada carabiga ugu tagi maysid meel kastaba. alif waxba male weeyaan. sidaas Soomaalidu inta badan waxay u tiraahdaa alif wax male. marka alif wax male laakiin waxa leh waxa weeyaan hamza ama alif gaab wax loo yaqaano oo marka luqada carabiga alif beetadeeda la baranayo loogu yimaado meel ku xigta yaada ama haada iyo yaada meel ku xigta. haddii aan horeba aan haddaba aan tusaalayaadka siiyo meeshaad ugu tagaysid alif hamsaha waa meeshan oo kale ayaa inta badan la dhigaa alif hamsaha. inkastoo buugan aan inoo qorin alif hamsaha maadaama buugan ay qoreen dad Soomaaliyeed oo aanay inta badan اعتمادين ألف همسة مع ألف قاب كوكرة لكن هذا وححيج شري وحلا يقانو لان ألف باحجة ولا ألف وسقاب كاسقلو قرمة وححيج مركا ألف همسة. ألف همسة هاي يروي كان كورديج ما مركا كورديجا يهوس ديجا يقدني كيشة مركا نكون قنا 10 كيني هوري إن شاء الله تعالى وكويان وحربا هنا حرف أمره xarafka ugu horeeya waxa weeyaan
a baa lagu dhawaaqayaa, kan ku xiga ma baan ugu dhawaaqayaa, kan ku xigana ra baan ugu dhawaaqayaa. sababtoo ah horeynu soo qaadanay in a lagu dhawaaqo, kana in ma lagu dhawaaqo. casharkiisii xigay ayaan kusoo qaadanay, casharkan ayaan kusoo qaadanay, kan ayaan kusoo qaadanay. mid walba ka iyo la iyo ma iyo na iyo saa in lagu dhawaaqayo casharkan ayaan kusoo qaadanay oo casharkii ka horeeya. marka maanta isla isagii baan dabaqaynaa. marka aad aragtid in uu kordhiga haddii aan yacni horena waan u sheegay, kordhiga waxaa loo yaqaanaa ereygaasa loo yaqaanaa ereygan yar, waxaa yar ee dusha sare, waxaas yar baa loo yaqaanaa kordhig. marka hadda alifkii waa kordhigan yahay. markuu alifku kordhigmo waa inuu waxaa yar yeeshaa, waxaas alif gaab baa loo yaqaanaa. marka ka kordhigmo waa alif gaabka yar, ma aha kan dheer maaha, laakiin waa alifka yar ee kor dusha sare ku yaala ayaa kordhigmaya. marka waxaan sameynayaa insha allahu tacaala, waxaan rabaa inaan isku dayo inaan ugu dhawaaqo mid walba sida ay tahay. kan ugu horeeya waxaa loogu dhawaaqa a, kan ku xiga waa ma, kan ku xigana waa ra. marka degdeg carabiga waxa weeyaan waajib waxa ah inaad dedejisid oo a markaad tiraahid, ma tirahdid, ra'dana markaa aad isla markiiba tirahdid. marka aan dedejiyo qaabka lagu dhawaaqayo. ta ugu horeysa waa a, ta ku xigtana waa ma, ta ku xigtana waa ra, waayo kordhigan yahay mid walba. marka waxaan dhahayaa amara, amara, amara. haddaan sii dedejiyana waxay noqonaysaa amara, a ma ra, amara. alifka haddii uu xaraf xaganka xiga ku dhigi karaa, laakiin xaggan may. hore waxaan usoo qaatay qaabka saa loo yidhi, waxaad kusoo qaadanaysaa casharka afaraad. marka anigu waa dedejinaya un. sa'ala, sa'ala, dhara'a, dhara'a, basada, basada, baxatha, baxatha, badala, badala, taraka, taraka, tahama, tahama, xatama, xatama. ثبت، ثبت، ثقب، ثقب، ثرد، ثرد، جمع، جمع، جرح، جرح، سجد، سجد، حكم، حكم، حرث، حرث، جحد، جحد، خلع، خلع، خرج، خرج، سلخ، سلخ. دمع، دمع، دفع، دفع، دخل، دخل. ذهب، ذهب، ذكر، ذكر، كذب، كذب، رفع، رفع، رفض، رفض، كسر، كسر، زعم، زعم، لمز، لمز، نزع، نزع. صلخ، صلخ، سرد، سرد، سكن، سكن، شرب،
غل شغل كشف كشف عطش عطش نكص نكص نصح نصح صمت صمت ضرب ضرب حضر حضر طبط ضعن ضعن بطش بطش قذف قذف كظم 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 ظهر ظهر وعظ وعد عجز عجز عرض عرض عزم عزم غسل غسل غفر غفر بلغ بلغ فتح فتح خسف خسف فلق فلق قمع قمع فقد فقد نقب نقب حكم حكم لكم لكم مكث مكث لمس لمس لذق لدق حمل حمل مدح مدح لمح لمح لمع لمع وهن وهن نشر نشر جنح جنح وقف وقف وهب وهب عور عور هزل هزل نهج نهج هجم هجم ينع ينع يسر يسر يذر يذر. halkaas ayaa inagu soo dhamaatay xurufihii markaasi ilaa ya-da la taxayay ee carabiga. waxaan rajaynayaa ereyada qaabkan ugu dhawaaqayo inaad ugu dhawaaqday adiguna adiga oo raacaya tilmaamaha iyo qaabka aan ku siinayo. talabaadii waxa weeyaan inaadan u dedejin sidaan anigu hadda u dedejinayo, balse aad adigu mar walba boos samayso ama aad yara hakiso kabacdina aad akhriso oo ilaa inta aad ka garanaysid oo ka xifdinaysid qaabka aad sameynaysid. luqadda carabigu waxay u baahan tahay ama higaada carabiga aan dhehe waxay u baahan tahay in aad mar walba ka fiirsato oo aad eegto. laba qaab weeyaan. qaabkan hadda aan dhigayo waxa weeyaan in aad qur-aanka kariimka ah ama kitaabkeena qur-aanka ahi inaanad ku hakan oo meel walba oo ka mid ah aayad kastaba iyo xuruuf kastaba oo kitaabka qur-aanka kariimka ah insha allahu tacaala waxaan doonayaa in aan isdul taagno oo aan dhigano oo aan akhrisano. haddii aad kilibyada pagekan ama qaybtan janalkan ah ee qaybtiisa carabiga aad ku taxnaatid insha allahu tacaala waxaan kuu rajaynayaa in aad u baran doontid, aad u garan doontid, erey kastaba iyo xaraf kastaba aad meeshiisa dhigi doontid haddii allah idmo. adigana waxaa lagaa doonayaa dadaal dheeriya, waayo waxaan loo dadaalin waxa weeyaan ma miro dhashaan.
aad iyo aad baan idin salaamayaa, halkaasaan casharkana kusoo gabagabaynayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.